xiisadda ka taagan dalka Ethiopia ayaa marba mar ka dambaysa sii kordhaysa. Dhammaan dhinacyadu waxay u muuqdaan inay weli ku jiraan hardan adag oo dagaal. Kooxda TPLF waxa ay weerar kala duwan ku haysaa deegaano ka mid ah kuwa ismaamulada xanfarta iyo waliba sidoo kale Amxaarada. Waxa ay doonaysaa inay qabato gacan ku haynta meelaha muhiimka ah, gaar ahaan marka ay joogto gobolka xanfarta oo ay doonayso inay tagto wadada halbowlaha ee isku xirta Djibouti iyo dalka Ethiopia. Waa marin muhiim ah kaas oo ay u arkaysay inuu yahay il dhaqaale oo waqtigan ay tahay gacanta inay ku qabato. xaaladda ka jirta gobolka Tigray waa mid walwal leh ayay leeyihiin hay'adaha gargaarka, waxayna sheegeen in macaluul baahsan halkaasi ay ka jirto. qiimaha quutul daruuriga ayaa sare u kacay, manaba jirtaba meelaha qaar in la helo gabi ahaanba waxyaabaha daruuriga ah, taasoo ka dhigan in aan xataa dadku waxba iibsan karin, wixii la iibsan lahaana aan la helin. taasi awgeed ayay leeyihiin dadka la socda xaaladda Ethiopia way ku khasban tahay TPLF inay hesho jid ay gargaar ka soo geliso, iyo waliba sidoo kale gaadiidka ka imaanaya xagga Jamhuuriyadda Djibouti oo ay doonayso inay gacanta ku dhigto si ay gobolkeeda ugu quudiso. laakiin hadda waxaa soo baxaya war kale oo la xiriira in jidka tareenka ee isku xira labada dal ee Ethiopia iyo Djibouti ahna dhuunta dhaqaale ee dalka Ethiopia ay suuragal tahay in labada dal ee Djibouti iyo Ethiopia ay si wada jir hadda ugu guntadaan sidii loo xaqiijin lahaa amaankiisa. cutub ka mid ah ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti ayaa warar madax bannaan ay sheegayaan in loo diray halka xuduudda uu kaga egyahay dhanka Djibouti si loo xaqiijiyo ayay leeyihiin wararku. laakiin warkaasi ma aysan xaqiijin dowladda Jamhuuriyadda Djibouti, waxaana haddii ay taasi dhacdo ay ka dhignaan doontaa in Djibouti ay qayb ka noqonayso hadda loolanka u dhaxeeya TPLF iyo Ethiopia. dhinaca kale, qoomiyadda Amxaarada oo u muuqatay inay si aad isku abaabulayso ayaa dib u qabsatay, sida ay sheegeen dhowr marin oo muhiim ah oo ka mid ah dhulka ay isku hayaan Tigreega ee dhaca koonfurta dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray iyo Amxaarada xuduudaha dhul ahaan ee ay isku hayaan. waxaana labada dhinacba ay kala sheeganayaan guulo. dhalinyaro hubaysan oo dhowaan la carbiyey ahna qoomiyadda Amxaarada ayaa sheegay inay la wareegeen goobo muhiim ah, taasoo muujinaysa in dhammaan dhinacyadu hadda ay habbeeleed isku abaabulayaan. sidaas oo kale, ciidamada kelilada ka yimid ayaa gaaray gobollada Amxaarada, waxaana ka mid ah ciidanka Soomaali galbeed laga diray oo gaaray jiidaha hore sida ay xaqiijinayaan wararku. dagaallo culus ayaa ka socda gobolka Tigray iyo xuduudda ay la wadaagaan dhinaca kale gobolka xanfarta oo ay xoogga soo saareen si ay marinkaas u bannaystaan una helaan gargaar dadkooda ay ugu yaraan gaarsiiyaan. dhinaca Eritrea ma jirto wax culaysa oo ay ku hayso TPLF sida muuqata. deegaanka Xumeero oo muhiim ah ayna iska galaan xuduudaha wadamada Eritrea, Suudaan iyo Ethiopia. TPLF waxay u muuqataa inaysan hadda awoodda saarin ee ay waqtiga gelinayso dhinaca gobolka xanfarta si ugu yaraan ay u hesho marin muhiim ah. TPLF waxa ay hadda xoogga saaraysaa inay hesho marin muhiim ah oo ay wax badan kala soo gudbi karto, laakiin sida ay Djibouti uga soo day karto ayaa ah dhammaan wax kale oo isweydiin leh, maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uusan ku dhiiran karin in uu si fudud hadiiba ula shaqeeyo TPLF, iyadoo oo dhowaan ay ku eedeeyeen in xubno ka mid ah jamhadooda uu soo gacan galiyay maamulka Ethiopia, taasoo Ismaaciil laftirkiisa ku ah dagaal kale oo culus oo siyaasadeed. xaaladdu waxa ay u muuqanaysaa midba mar ka dambaysa ka sii daraysa, Ethiopiana ay hoos u sii galayso dagaalo halis badan.